shirkun jaraa'id ee geedka xafiiska qobodii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Ilyas Cali Nuur Cali iyo waliba ku dambeeyay kureed markii oo habeen warar sheegeen dhibaatooyinka magaalada Laascaanood lankajeysidahay dadka walba aan galabsanay ku jeedaan deegaanadan Koonfur Galbeed waliba uu tilmaamay wasiirka in tilaabooyinka iyo go'aanada la ka dhibaateeyay dadkaasay dan yartay haano la ku xumaad isla markaasayna ku dheer dhaqanka iyo Soomaalinimada. Ilyas Cali Nuur Cali wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba baak eedan in la roojiyay dhibaatooyinkaasay indiray dhammaan mas'uuliyiinta maamulka Somaliland odayaalka iyo walgorodka Somaliland. waa ko wasiir Ilyas Cali Nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo arimoogase iyo arimo kale ku hadlay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo ah wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maanta waxaan rabaa in halkan aan maaragtay ugu baaqo ama maaragtay aan ka cambaareeyo dhibaatada ka taagan gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood magaalada Laascaanood marka anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen waxaan rabaa cambaareyntaas in aan u soo jeedino maamulka Somaliland dadka ka soo jeedo South West ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay ilaa iminka aan idin la hadlayo dhibaato ayaa ka taagan dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh meesha degan oo South West ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskooda iyo caruurtoodii meel isku geeyay marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaabo marka waxaan codsanaynaa marka mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha cuqaasha maaragtay Somaliland waxaan ka codsanaynaa iyo arimaha bulshada dhamaantoodii waxaan ka codsanaynaa arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeedo Koonfur Galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka waan cambaareynaa dad maaragtay in oo sidii xoolaha oo kale la iska soo ururiyo meel isku geeyo dadka waxay ka cawanayaan nin la yiraahdo in kaahin la yiraahdo maaragtay ku jiro maamulka Somaliland ku jiro ayaa maaragtay dhibaatadaas hormuud ka yahay marka waxaan codsanaynaa odayaasha iyo ururada bulshada iyo hay'adaha xuquuqul insaanka dhamaantoodii iyo maaragtay maamulka Somaliland waxaan ka codsanaynaa arintaas inay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u istaagaan oo maaragtay waxna ay ka qabtaan waayo anaga waxaan nahay dad Soomaali ah oo dad walaalo ah dad Islaam ah oo dhiig iyo maaragtay diin iyo ayaan wadaagnaa marka dad maaragtay ka soo jeedo waqooyi ka soo jeeda ayaa ku nool Koonfur Galbeed hantina ku leh marka qof kastaba dad ayuu leeyahay deegaan ayuu ka soo jeedaa marka waxaan codsanaynaa ka dawlad ahaan anigoo ku hadlayo dawladda Koonfur Galbeed magaceeda anigoo ku hadlayo waxaan codsanaynaa in maaragtay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda in loo soo celiyo oo maaragtay xitaa haddii maaragtay dadka ay iskeeni waayaan ama culeys dad ay ku hayaan waxaa jirto nidaam iyo maaragtay hab dadka maaragtay wadankooda loogu soo celin karo laakiin ma aha qofkii in la jirdilo in dhibaato loo geysto sawiro ayaana noo soo diray videoyaal ayaana noo soo diray xitaa waxaa la sameeyay maaragtay dadkii warbaahinta ahaa qaar kamid ayaa la xiray oo maaragtay dhibaato loo geystay marka Soomaalinimadana uma wanaagsan islaamnimadana uma wanaagsan xuquuqul insaankana uma wanaagsan marka waxaan codsanaynaa ka dawlad ahaan maamulka Koonfur Galbeed uu codsanaya in maaragtay oo madaxweynaha u weyn yahay in maaragtay maamulka Somaliland ay ilaaliyaan walaaltinimada iyo Soomaalinimada ay ilaaliyaan arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka soo horjeestaan dhibaatadaas lagu hayo dadka ka soo jeedo Koonfur Galbeed marka intaas ayaan codsanaynaa dadkaas masaakiinta ah oo biina aan la siinin cuntana aan la siinin 20 sano meesha ay degan yihiin hanti ay ku leeyihiin in hantidooda loo ilaaliyo si sharaf la maaragtay karaamo ku jirto islaamnimo ku jirto haddii ay ka soo tagayaan wadankaas ama laga soo musaafirna xataa in maaragtay si wanaagsan loola dhaqma marka
ayaan codsanaynaa. Marka waxaan leeyahay odayaasha iyo maaragtay ka soo jeedo dadka waxgaradka ka soo jeeda Somaliland inay arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka hor yimaadaan oo maaragtay ay qabtaan dadkaas walaalahoodana xuquuqdoodii ay ilaaliyaan. Antaas ayaan ka codsanaynaa, antaasna ayaan ku baaqaynaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadka waraysigan oo maaragtay ayagana Jaanis noo siiyay, aad bay u mahadsan yihiin. TV-da dhamaantooda aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kaltuuma Mustafa Nuur, warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.